لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha muslimiinta meel kastoo ay joogaan marka koobaad waan salaamayaa mar labaadka waxaynu ogsoonahay walaalayaal dadka muslimiinta ahi waxa ay xaq isugu leeyihiin in mid waliba uu la jeclaado walaalihii waxaa naftiisa uu la jecel yahay walaalihii inuu la karaahiyeysto oo uga bao wax kastoo naftiisa uga ba-ayo uu la karaahiyeysanayo waxay muslimiintu xaq isugu leeyihiin inay isla taliyaan oo qofku walaalkii uu sheego waxa danta oo adduun iyo aakhiraba nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam saxaabada qaarkood arrinkaa ballan ayuu kaga qaaday sida saxaabigii la odhan jiray jariir bni cabdillaahi albajali waxaanu rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam sheegay muslimiintu wixii wanaagsan inay isu sheegaan wixii xunna inay isaga digaan inay ka mid tahay qodobada waaweyn ee diinteenna islaamka waana arinta dadka iimaankooda iyo diintooda iyo toosnaantooda ay ku ziyaadayso ay ku kordhayso xumaantuna dhexdooda ay ku yaraanayso taasaanay ku jirtaa muslimiinta dantoodu adduun iyo aakhiraba waxaynu ogsoonahay walaalayaal maalmahan waxaa jira oo dadku aada iyo aada uga hadal hayaan ciidaha gaalada ee kala dambeeya ciidahaasi ama ha noqdaan ciid diiniyo gaaladu ay leeyihiin ama mid iyaga cadow ah ciidda markaa christmaska iyo ciidu ra'si sana ciidda dhammaadka sanadka oo labaduba ciido diineed ah oo ay leeyihiin qolada la idhaahdo annasaara kiristaanka qolada aynu u naqaano ayaa maalmahan xaggooda ka jira waxaa markaa nasiib darro ah in fara badan oo muslimiinta ka midii ama ha u geeyo aqoon darro iyo jahli diintooda ay kaga sugan yihiin ama sababtuba ha noqoto hawaraacnimo iyadoo xaqi u caddaaday sida naftoodu ay doonayso ay jeceshahay inay xaqi waxa weyaan ay ka raaceen ciidahaasi ayay la wadaagaan qofbasi waxa weeyaan uu la wadaagaba in fara badanna culimadu way ka hadlaan waajibkuna waxa weeye dadka culimada ah ee dadka ku waaninaya hadalka ilaahi subxaana watacaala iyo hadalka nebiga caleyhi salaatu wasalaam warkooda in la maqlo talooyinkoodana la qaato taasaana lagu liibaanayaa adduunyada inta aynu joogno iyo aakhiro marka ilaahi subxana watacala lana horgeeyo waxaan u sheegayaa walaalaha muslimiinta oo dhammaantood baan xusuusinayaa ciiduhu waxa ay yihiin astaan diineed ciiduhu waa waxyaabaha u muuqaalka badan ee ay ku kala soocmaan ummaduhu diimuhuna ay ku kala duwan yihiin nabigeena calayhi salaatu wasalaam intaanu ilaahay u waxyoon dadkii caalamka joogay ciide ayay lahaayeen rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi magaalada madiina iyagoo le 2 maalmood oo xafladaystaan oo ay ciyaaraan oo ciid ay u aqoonsan yihiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu weydiiyey wuxuui 2 maalmood maxay ahaayeen waxay 2 maalmood waa ciidaha iyagoo waanu ciyaaraayo waanu xafladaysanaa bal u fiirsado walaalayaal nabigeenu calayhi salaatu wasalaam dadkii islaamay waxa uu ku yidhi iyo arinta ciidda ku saabsan rasuulku calayhi salaatu wasalaam talada uu ka siiyey iyo xukumka uga caddeeyey wuxuu uhi ina allaha qad abdalakum bihima khayra minhuma alfitr waaladxa abu daawuud baa xadiidka wariyey ilaahay subxaana watacaala haddaad muslimiinta tihiin ciidihii hore islaamka hortii aada lahaydeen wuxuu idinku bedelay ciido ka khayr badan waa ciid lfitri oo ciidda ramadaan iyo ciid ladxaa oo ciidda carafa ah waxay culimada islaamku idhahdaan markay xadiidkaasi fasirayaan macnuhu waxa weeye wax allaale wixii ciid hore u jiri jirtay oo dhan waa laga guuray waxa loo guuray ciidaha islaamku uu jideeyey oo sanadkii 2 ciidood ah usbuuciina ah yowm اljumuca maalinta jumcaha ee cibaadaadka gaarkaa dadka muslimiinta loo jideeyey loo sharciyey wax markaa la bedelay oo laga guuray iyo wixii lagu bedelayna meel isuguma iman karaan macnuhu waxa weeyaan labadaa ha kulminina oo yaan la arkin qof muslima oo ciiddii islaamkana ku farxayo xafladaysanaya ciidihii hore ee jaahiliga ee jiray iyo ciidaha gaalada walow mar dambaba adduunyada ha kusoo kordhaane labadaa qof kulminayaan la arkin waa laba la isku bedelay oo qofku markaa shaygii khayrka badnaa ee loogu bedelay wixii aan wanaagsanayn iyo wixii aan wanaagsanayn meel inuu isugu keeno waa arrin caqliguna uu diidayo sharciguna aanu ogolayn
ilaahay subxaana watacaala wuxuu inoogu sheegay walaalayaal fi lqur'aani alkariim qolo walo markaa diin haysataaba inay leeyihiin waddo diintoodaasi a u jeexday. diintana saynu sheegnay iyo sharciga ciidaha ayaa ka mid a, bal astaameed diineedyada ugu waaweyn ayaa ciiduhu ay ka mid yihiin. walikullin jacalnaa minkum shircatan waminhaaja buri ilahay subxana watacaala, mid wal oo idinka mida waxaan u yeelay sharci iyo dariiq uu raaco oo ilaahay subxana watacaala ugu dhawaado noloshiisana u ku dhiso. nasaara mid bay leeyihiin, yuhuuddu mid bay leeyihin, muslimiintu mid bay leeyihiin. qolana qole inay u tallowdo waxa weeyaan looma ogola oo ay la wadaagaan, gaar ahaan muslimiintu inay u tallaabaan ciidaha gaalada, oo yuhuuddu waa gaalo, kiristaankuna waa gaalo. cid kastoo nebi maxamed aan rumayn, diintan islaamkana aan raacini, magaca kale doonayaan ha sheegtaan, diintay doonayaan ha haystaan, waa gaalo. siduu ilaahay subxana watacaala ku cadeeyey fi lqur'aani alkariim, lam yakun aladiina kafaruu min ahli lkitaabi walmushrikiin. kuwa mushrikiinta ee sanam caabudka iyo kuwa ahlulkitaabka oo yuhuudda iyo kiristaanka ah, labadaba ilaahay kufaar ayuu ku sheegay mar haddaanay raacin oo aanay rumayn oo aanay qaadan sharcigii lagu soo dejiyey nabigeeni maxamed calayhi afdal salaati watasliim. ilaahay wuxuu qur-aanka inoogu sheegay oo ku daray sifaadka iyo tilmaamaha ay leeyihiin cibaad araxmaan, kuwa ilaahay ku sharfay oo ku ammaanay addoommo ilaahay oo dhaba inay yihiin, inaanay ka qeyb qaadan ciidaha gaalada. oo rabbi subxaana watacaala wuxuu yihi markuu sifaadkooda iyo tilmaamahooda tirinayey, waladiina laa yashhaduuna azuur waidaa maruu bilagwi maruu kiraama. waa kuwa aan goobjoog ka noqonahayn, meel lagu hayana aan tegahayn baadilka. baadilka waxay ku fasireen raggii saxaabadii rasuulka cilmiga ka qaatay, sida mujaahid oo ah taabici weyn oo ahaa ardaygii cabdillahi ibni cabaas iyo kuwo kaleba, acyaad lkufaar, ciidaha gaalada. waa tusaale, waxyaaba badan baa soo gelaya, laakiin wuxuu si cad u sheegay ciidaha gaaladu inay ka mid yihiin zuurka, baadilka iyo beenta aayadda lagu sheegay, ee dadka mu'miniinta sifadooda iyo tilmaantoodu ay tahay meesha lagu hayo inaanay tegin, qeybna iyagu inaanay ka noqon. walaalayaal, qofka muslimka ah waxaa la rabaa inuu isagu noqdo mid diintiisa haysta, sharafta iyo cizada iyada ku raadinaya. cidda diinta alla haysatee muslimiinta walaalihii ay yihiin, xigtana ay yihiin, iyaga uu caawinayo, iyaga uu nusraynayo, iyaga uu garab taagan yahay, iyaga uu garabsanayo. qofka muslimkaah maaha inuu isagu noqdo miduu xaalkiisu kusoo ururay atabiciya lilumam اlukhra, ummadaha kale mid daba socod u ah. arinta noocaasi waa qofkii muslimka oo cizadii iyo sharaftii ilaahay subxana watacaala uu siiyey iska xayuubinaya, oo halkuu isagu ka noqon lahaa hormood ummaduhu ay ku daydaan, wadadiisana ay raacaan, ummadahana ugu baaqaaya diinta islaamka ilaahay uu ku sharfay. haddii isagii uu noqdo mid iyaga daba socda, qof isduleeye weeye. waana siduu sheegay nabigeenu calayh salaatu wasalaam, wajucila adullu wasagaaru calaa man khaalafa amri. dulliga iyo hooseynta waxaa dusha laga saaray cidda amarka ee khilaafta. qof kasta oo gaalada ciidahooda la wadaaga si uu la wadaagaba waa qof khilaafay amarkii nebigeeni muxamed calayhi salaatu wasalaam. waayo nebigeenu wuxuu yihi ina likuli qowmin ciida wa hada ciiduna. qolo weliba ciid bay leeday. haddeen muslimiintana ciidaynu leenahay, ilaahay noo jideeyey, sharcigeena lagu sheegay. gaaladuna ciido kala duwan bay leeyihiin. inaga ciideeni waa tan buuri nebigu calayh salaatu wasalaam, isagoo tilmaamaya ciid ulfitri iyo ciid uladxa iyo rasuulku calayh salaatu wasalaam isagoo sheegaya. waxaa nasiib daraa gaaladu ciideena ma weyneeyaan, mana xafladaystaan, mana xusaan, inagalamana qeyb qaataan, tooda ayay ku egyihiin. waa iyagoo gaalo ah oo ciidoodu xataa aanay sax ahayn sharcan wa caqlan. inaga oo muslimiina oo ciido saxa oo ilaahay noo jideeye haysana, in aynu ciidahooda u tallowno oo aynu kala qeyb qaadanaa waa nasiib daro. waana arrin nabigeenu calayh salaatu wasalaam uu kasii digay. waa imtixaan ummadda u yaalay oo ummadda ilaahay ku imtixaamay, oo rabbi ugu kala saaraya kuwa imtixaanka ku dhaca ee ciidaha gaalada dabagala iyo dhaqamadooda, iyo kuwa ku koobsado ku eekaada intii ilaahay subxana watacaala u jideeyey. ilaahay subxaana watacaala wuxuu inoogu sheegay fi lqur'aani alkariim gaalada oo labada maanta loogu dayasho badan yahay, oo ah alyahuud wاnasaara,
laba sifo ay leeyihiin qofka muslimkaa ay caqliga leh ku dhalinaysa wadadooda inuu ka fogaado iyaga inaanu tusaale ka dhigan iyo kuwa ku daydo. ilaahay subxaana watacaala wuxuu yihi fii suurati alfaatixa ha loo fiirsado qof kastoo muslimi ragcad kastoo uu tukanayo faral iyo sunnaba u akhriya. qur-aankaynu akhriyeynana in camalkeena iyo dhaqankeena uu khilaafo ma aha walaalayaal. waa in qur-aanku caqiide inoo noqdo, qowl aynu ku dhawaaqayno inaynu akhriyeyno, camal dhaqankeena ah waa inaynu ka dhigano, nolosheena aynu ku salayno. ihdina asiraata almustaqiim siraata aladiina ancamta caleyh. ilaahay baad weydiisanaysaa inuu kugu hanuuniyo wadada toosan, waa wadaday mareen kuwa ilaahay u nicmeeyey, waa nebiyada iyo ciddii ku dayatay, kuwaasaa mudan in tusaale laga dhigta weyaan macnuhu, wadadooda la maro. gayri lmaqduubi calayhim wala daaliin. ilah waxaanu kaa magan gelinaa laba qolo wadadooda. waa qolada loo cadhooday, nebigeena inoo sheego waa yuhuud, cilmigii bay ku camal fali waayeen, nebi maxamedo nebinimadiisa ay garanayaan bay haddana beeniyeen. iyo qolada luntay waa annasaara oo jahli bay ilaahay ku caabudeen. miyaana walaalayaal ahayn midaan qurux badnayn in qofka muslimka ahi dadku ilaahay u sheegay inuu cadhooday iyo kuwa ilaahay u sheegay inay lunsan yihiin inuu iyaga ku daydo, iyaga tusaaliyo hormood u ka dhigto. miyaad jeceshay kuwa in lagula soo ururiyo? nabigeenu wuxuu yihi qofka waxaa meel lala joojinaya maalinta qiyaame ciduu jeclaado. kuwa ilaahay cadhooday haddaad jeclaato ilahay waa ku cadhoonaya, kuwa lumay haddaad jeclaato wadadooda aada marto adiguna waad ka daba lumaysaa. kuwaasi walaaleel wadada ay hayaan waa wado jahanamo gaadhsiinaysa. qofka muslimkaa ee caqliga leh ilaahay rumaysaniyo rasuulkiisa iyo diinulislaam inuu gala maaha kuyuuga ay ku jiraan dadka haya wadadii naarta lagu gelayay. waa inuu khilaafo oo isagu uu ka duwanaado wadada saxda ilaahay uu yihi wa ana hada siraaطi mustaqiima faاtabicuuh. qofka muslimkaa waa inuu maro. maaha arinka ciidaha in la fududaysto oo wax sahlan loo arko. ciiddu waa diin, waa astaan diineed. waxay culimada islaamku ka gaadhsiiyeen qofka gaalada ciidahooda la wadaagaa ee la xafladaysta ee wuxuun ku darsadaa inuu la mid yahay qof qibladooda u tukaday oo salaadoodii oo kala tukaday oo soomkoodii oo kala tukaday oo ciiddu siday salaadu diin u tahay ee soomku diin u yahay ayaduna diin u tahay. maanta haddii qofka muslimka laa salaada kiristaanka tuko wuxuu odhanaya muslim baana saan u tukada. waa inaad fahamto ciidduna inay salaada ay la mid tahay oo iyaduna ay la xukum tahay. aad bay uga digi jireen dadkii wanaagsanaa ilaahay diinta fahamsiiyey gaalada ciidahooda in si un looga qeyb qaato. cumar ibnu khadaab radi allahu canhu meelaha ay ciidahooda ku qabsadeen ha tegina buuhi nacdasha ilahay baa kusoo degeysa. iska dhaaf in lagala qeyb qaato ciidooda ee meesha lagu yaqaano inay iyagu ciidoodii xafladooda ay ku qabsan jireen ayaan xataa loo ogoleyn qofka muslimkaahi cibaado waxay samayn jireen dusha uga eeg inuu ku sameeyo. oo ninkii nebiga ku yihi waxaan ku nadaray meesha buwaano la yidhaahdo inaan geel ku gowraco ilaahay daraaddii ugu gowraco. rasuulku wuxuu ihi sanamyo ooli jiray lagu caabudo, ciidahooda ka mida miyay ku samayn jireen? walaalayaal yaynaan ka qeyb qaadan ciidaha gaalada si aanu ilaahay noogu cadhoon, si aynaan u waayin shakhsiyadeenna iyo sharafteenna islaamnimo oo aynaan u noqon ummad dhaqankooda iyo sifadooda ay tahay inay ummadaha cadowga u ah daba socod ay u yihiin. yaynaan ku tahniyadaynin, yaynaan inagu isku tahniyadaynin, yaynaan xaflado u qabsanin. weliba haddii xafladuhu ay ku darsadaan inay ciiddii gaalada loo xafladaysanaya yihiin macaasi kale bal ka waraba. muusig la garaacayo, dumar qaawan, rag iyo dumar waxa weeyaan isku dhex jiro, isdhex qaaday. waxay culimada islaamku ka gaadhsiiyeen inaanu qofka muslimka ahi xabad beeda bimunaasabati alciid, munaasabada ciidda awgeed inaanu iyaga u hadiyeen. hadday usoo hadiyeyaanna qofka muslimka ahi inuu ka aqbala maaha. xataa in fasax la gala maaha munaasabada ciidda gaalada iyadoo la eegayo. dadka markaa muslimiinta ah ee le goobaha xafladaha lagu qabsado sida hoteelada oo kale ilaahay baa u nicmeeyey, waa risqi ilaahay uu siiyey goobahaasi. waajibku waa inay ilaahay uga mahadnaqaan oo goobahoodaasi ay noqdaan goobo ilaahay lagu adeeco oon ilaahay subxana watacaala aan lagu caasiyin. taana waxaa astaamaheeda ka mida inaanay ogolaan goobaha in lagu qabto xafladaha loo dhigayo ciidaha gaalada. hana ogaadaan risqigii xalaasha ilaahay uu siiyey inay iska xaaraantimeynayaan oo wixii xaaraana, wixii maal laga tabcada isaguna waa xaaraan. qolooyinka warbaahinta laftooda waajibkaasi ayaa saaran.
waa inaanay qeyb ka noqon inay ummadda ku dhex baahiyaan oo ummadda ay ku wacyigeliyaan ka qeyb qaadashada ciidaha gaalada. ilaahay baynu subxaana wa tacaala weydiisanaynaa inuu inaga dhigo dad muslimiin oo diintooda si dhaba u haysta, kala yaqaana cadowgooda iyo gacalkooda iyo nacabkooda kuwo kala yaqaano inuu ilaahay naga dhigo. ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay yuhuud iyo nasaara inay cadowgeena yihiin. yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu caduwi wacaduwakum awliyaa. mar kale ilaahay subxana wa tacaala iyaga ayuu si gaara u carabaabay. yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu lyahuuda wاnasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd. iyagaa xigtaysu a idinkana cadow bay idin yihiin. caqli maaha cadowgaagii maalinta uu farxayo inaad la faraxdo, maalintuu xafladaysan inaad la xafladaysato adigoo weliba tiisa kaga dayanaya. caqliga saxdi wuxuu keenaya cadowgaaga inaad ka duwanaato oo aada khilaafto. ilaahay taa hayna garansiiyo. ilaahay baan muslimiinta o dhan u weydiinayaa aniga laga bilaabo hanuun, cilmi waxtar leh, camal saalixa oo suuban. ilaahay subxaana wa tacala hayna waafajiya barashada diinteena iyo ku dhaqankeeda iyo ku dhiqista cidda qof waliba mas-uul ka yahay. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.